الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بهذا إفيه دمان كسوق قلياشة صاحبتي قالئة وقاركود وجيدود مدهور يقدم بيس لكن هذا مركا أركو عين سويدينا تلو حاجاكو أركتي مرمر وحاس لا اسكو جامعة ما أهيدن لكن ها أنا آدي دي كوينها ومليسينا وملينا لكن دعاء waxaa ii soo cadaatay inaan dadka waaweyn ku jiro ama dadka odayoobay inaan ku jiro markaan adinkeedin arkay laakiin caawa waxaan rajaynayaa inaad dhalinyarnimada ku soo laabto meeshaas aan iskala qabsano taa marka waxay u baahan tahay aniga waxaan idin barayaa aad u yar yihiin laakiin adinkaan rabaa inaan wax badan i bartiin aan rabaa haddii ilaahay yiraahdo marka waqtiga aniga hadli doono waa ka yirahay waqtiga adinka hadli doontiin sida aan ku heshiinay asxaabteena marka mar labaad waxaan u mahad celinayaa ifiya iyo dadaalka weyn ee loo galay inaan kulankan isugu nimaadno anigoo garanaya duruufo badan oo inagu xeeran adinkana idinku xeeran waxaan aad iyo aad aan u rajaynayaa inay noqoto kulan xiiso leh oo anigana ay dhiirigeliya adinkana ay dhiirigeliya wax badan aan idinka barto haddii ilaahay yiraahdo inta aan isla joogno waxaan rabaa inaan usoo laabto mawduuca maanta laga hadlayo oo waa laga yaabaa dee badankiin ama qaar badan oo ka mid a meelo kala duwan unbay nolosheena isku aragtay laakiin caawa cawadii oo isbeddelka siyaasadeed iyo dib u dhiska siyaasadeed iyo habeenkeedii caawa ma aha caawa waxaa weeye isbeddelka bulsho iyo dib u qaabeynta bulsho inaynu iska wareysano kadib aan waxyaabaha kaleeto iskugu imaan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo annaga bulshadeena soomaaliyeed bulshooyinka caalamka un bay la mid tahay bulsho kastana waxay martaa maraaxil kala duwan oo nolosheeda ku saabsan hadba maraaxishaas qaabka ay yeelato iyo sida loo qaabeeyo ayay ku xiran tahay isbeddelka ku yimaada nolosheeda siyaasadeed teeda dhaqaale teeda dhaqan iyo waxyaabo badan oo la mid ah waxaa laga yaabaa marka muuqaalkeena mararka qaar oo meelaha qaar ku saabsan inaan muuqaalka bese ka fikirno oo aanan isweydiinin waa maxay sababta inugu keentay inaan sidaa noqono yacni tusaale ahaan oo tusaalaha ugu weyna dadku waxay mar kastana weydiiyaan maxaa dowlad la-aan u noqoteen waqti dheer haddee wuxuu ma aha hebel iyo maalin heblaayo wax iska dhacay waa wax saameyn ku leh qaab dhismeedka bulshadeenna saameyn ku leh marka wax yar waxaan rabaa inaan iska weydiino intii xusuusta dhow ee qaab dhismeedka bulshadeenna muxuu ku salaysnaa si akademika caawa idin lama hadlayo bulshooyinka iyo meelaha ay soo maraan iyo definitionada iyo sociologiga iyo transformationka iyo wixii waxaas ma raba inaan idinkala hadlo waxaas jaamacadaha lagu bartaa aniguna waxaan bartayba uma badnayn dhankaas wax kale aan ku takhasusay laakiin intii aan soo jirnay xusuusta dhow ah waa maxay marxaladaha ay soo martay qaabeynta bulshadeenna waa maxay raadka ay yeelatay ugu dambeyntiina waxaan rabaa inaan ku soo khatimo meesha ah sideen hadda isu qaabeyn karna ilaa waqtiga dambe muddo intee la egay bulshada ku qaabowdaa oo ay ku bedelantaa waa su-aal aada u adag bulshooyinkan waa kala duwan yihiin laakiin aniga waxaan rabaa caawa inaan iska ijtihaado oo aan dhaho bulshadeenna 20kii sanoba qaabaysan cusuba u soo baxo qaabaysankaas qaabaysan dhammaystiran ma aha meelaha qaar uu ku xoog badan yahay meelaha qaar uu ku liitaa qaabaysanka qaar eena soo maray waana la jiitamayaan oo marxaladda kale soo galayaan kuwa qaar waa xoogoobayaan qaabaysanka qaar waa xoogoobayaan kuwa qaar waa daciifayaan markii marxaladaha ka mid la gaaro laakiin si kooban labadii tobanaad ee ka horeysay xorriyaddeena waxay bulshadeena u qaabaysantay bulsho qarannimo raadis ah qarannimo doon ah intii ka horeysay qabaa'il reero meelo iska degan xuduudo aan dowlado kale la lahayn laakiin isticmaar uu ku soo kordhay noocaasaan iska ahay nolosha iyo baahida iyo waxaasna badankeed waxay ku xirayd waxa nolosheenna uu ku xiran yahay laakiin inaan isqaabayno yaa meeshaa ka dhalatay waa 40meeyadii iyo 50meeyadii meeshaasaan rabaa marka inaan ka bilaabo qaabayntaas waxaa ka dhashay marka fikir kelmaddaana waxaan rabaa inaad
maskaxda ku haysaan markaan caawa wada hadlayno qaabeynta waxaa ka dhashay fikir ah maxaan doonaynaa maxaan rabnaa inaan noqono waa fikirka ay ku dhalatay arrinta ah waxaan nahay soomaali weyn waxaan doonaynaa inaan noqono qaran waxaan doonaynaa inaan noqono dal madax bannaan waxaan doonaynaa inaanu ajnabina xukumin waxaan nahay soomaali farqi noo dhexeeyana lama arko yacni fikirkaas iyo aragtidaas iyo muuqaalkaas dadka ugu xoog badan ee qaaday SYL baa ka mid ah dhaqdhaqaaqyadii kale gobonnimo doonka ka mid ah meelaha kala joogay dhaqdhaqaaqyadii gumaysi la dagaalanka ka mid ah oo tiro badnay oo marka qaar aan isku xirnayn laakiin hadafkaas ah waxaan nahay Soomaali haddaan nahay Soomaali oo dhanna meel kasta aan joognay waxaan u baahan nahay qaran iyo dowladnimo annaga aan leenahay inaan yeelano aan u baahannahay meeshaas marka aragtidaa dheer iyo hamigaas waxay keentay in wixii hoose laga tago xoolihii la isku dagaalami jiray beertii la isku dagaalami jiray sooyintii la isku dagaalami jiray qabaa'ilkii dagaalkooda oo ka dhaxayn jiray maxaan ku yiraahdaa ceelashii iyo shubitaankii la isku dagaalami jiray dadka waxaa u soo baxay dad hormuud ahaa u soo baxay dad horseeda u soo baxay dad hoggaana u soo baxay oo dhahayo war waxaan waxba ma ahane waxaynu u baahannahay inaynu qaramada adduunyada jira aynu ka mid noqono oo aynu inagu isxukunno labadaas kontonkii iyo afartameeyadii iyo lixdameeyadii waa 20 sano soo maa 20kaas sano waa 20kii sano ee qarannimo doonka ahayd waaye marka ma raba inaan ka hadlo sidee qarannimadii loo doonay iyo dagaaladii la galay iyo halgamadii la galay dabcan waxaa lagu dhisay oo ay ku taagnayd waxyaabo asaas u ah bulshada tiirarka ay leedahay dhaqankeedaa ka mid ah diinteedaa ka mid ah laakiin waxaa lala dagaalamay wax allaale wixii ka hortegi lahay hadafkaas qarannimada lagu doonaya lala dagaalamay oo ugu horeyso in dadka Soomaalida la kala qoqobo in dadka Soomaalida magacyo loo bixiyo in dadka Soomaalida xuduudo loo yeelo ayaa lagu dadaalay nasiib wanaag 1960kii xorriyaddii baa la keenay ma dhamaystirnayn haddii aan 5 gobol ahayn 2 ayay noqdeen laakiin dowladnimo Soomaaliyeed oo dad Soomaali ah ay xukumayaan oo ay maamulayaan oo isticmaal aan ku hoos jirin oo ninkii cadaa aan la hoos joogin oo Soomaaliduna ay wada leedahay qabiilkana oo xajmigiisa aad iyo aad u yaryahay waxa dadka isu keenana ay badan yihiin ayaa samaysantay waxaan rabaa marka labadii tobanaad ee soo xigtay marka oo ah 60meeyadii iyo 70meeyadii oo ku dhamaanayso bilowgii 80meeyadii waa xilligii ugu badneyd ee laga shaqeeyay dowlad dhiska laga shaqeeyay dadka Soomaaliyeed ee midnimada helay waxa ay isku dayeen aragtidooda inay ku saleysnaato dowladnimadii la helay iyo intii la helay in la isku haayo hadafkii dowladnimada laga lahaayna la xaqiijiyo mar nidaam dimuqraadiyadeed iyo mar nidaam military iyo mar xoog la saaro dhismaha maxay ahayd hay-adaha siyaasadeed oo 10kii sano ugu horeysay aan ku qiyaasi karo iyo mar xoog la saaro dhismihii kale infrastructure-ka iyo hay-adihii kale bulsho xoog la saaraba bulshadu waxay u qaybsantay bulsho waxay u qaabaysantay bulsho iyada qarannimadeeda iyo dowladnimadeeda ku faanayso laakiin ay jiidanayaan sidii looga bixi lahay wixii bulshada dib u dhigay looga bixi lahay dabcan waxyaabaha aad loo raadiyay oo laga shaqeeyay waxaa ka mid ahayd in Soomaali weyntii la doono waxyaabaha aad looga shaqeeyay waxaa ka mid ahayd in dadka Soomaalinimada agtooda ay macno ka yeelato laakiin cawaamil kale oo tiro badan jiray oo dhinacyada garab socday oo markaan soo gaarnay 80kii ay noo bilaabantay bulshadii inay haddana dib u qaabeyn kale ay ku dhacdo waana dib u dhaca ugu weyn marka uu bilowday wixii aan haysanay marka laga bilaabo markaas meeshaynu hore u socon lahayn oo hore u dhaqaaqi lahayn wixii aan haysanay yaa waxaa bilaabantay inay sii kala fakadaan dowladnimadii aan u soo halganay ee aan jeclayn iyo tii lagu soo noolaaday oo weli ay joogaan dadkii u soo dagaalamay
ayaa dad badan ka aamin baxeen ma wada lihin sidaan rabnay kuma socoto xukunka lama qaybsan khayraadka lama wada helin waa la kala badsaday cadaaladdaa xun mararka qaar eedo waaweyn yaa soo baxay oo keenayo in bulshada isu qaabaysankeeda uu dib u laabto oo uu gadaal u laabto caawa waxaan rabaa mid ka mid a waxyaabaha aan aada u xusuusto dee waan yaraa markaas laakiin aan markaan hadda dib u fiiriyo ka mid waxyaabaha kalsooni darrada weyn dhaliyay waxaa ka mid ahayd 1975 dilkii culummada ka mid ahayd yacni dadka soomaaliyeed oo muslim wada ah waxay aamineen in dowladnimada aanan lagu aamini karin dowladda aanan lagu aamini karin waxaa ka dhashay marka dadku inay isqaabeeyaan markii dowladda la aamini waayo dadku waa isqaabeynayaan xaggee isku qaabeynayaan hab kale oo ay ayagu aaminsan yihiin inay diinta ugu gargaari karaan u ilaashan karaan ay isku qaabeynayaan waana habka siduu u socday dee dhaqdhaqaaqyada islaamka iyo waxaas iyo meeshaa nala galay marka dambena mararka qaar nasiib daro markii uu qalloocda naftiisa nala galay howlahan ku saabsan isdilka iyo argagixisada iyo nabaddiidka iyo wixigii oo mararka qaar markii habeen horoo kale lagu yidhaahdo qof baa lagu dilay masaajid gudihiis oo macnaheeduna uu yahay qof masaajid ku jiraa dilay waa sida loo leexday marka qaabaysankiya wuxuu naga aaday carar laga cararayo dowladnimadii iyo inaan lagu aamini karin inuu meeshaas nala aadayey oo halkaa uu nala tegay waxyaabo kaleenta marka meeshii awal marka qabiilka uu ahay unuga dadka ay ka fogaanayaan oo wax yar uu qabiilnimada ku raadsana ay ahayd haddii wixii la wada lahay ay burburayaan oo laga tegaayo kaasaa wuxuu yeeshay fursad aada u weyn uu yeeshay marka ma ogin waqti u heli doono waxyaaba ku saabsan identity-ga aniga yaan u dhashay waa qayb weyn oo ka mid a bulshada qaabaysankeeda anigu yaan ahay anigu waxaan ahay reer hebel ma soomaali baan ahay ma muslin aan ahay ma deegaanka waxaan ahay reer xaafadeedkaas iyo meeshaas degan arrinta ku saabsan nasab sheegashada iyo waxa loo nasab sheeganayana arrin kaloo aada iyo aada u weynay noqotay marka wixii la wada lahay oo loo nasab sheeganayo bulshada ku qaabaysnayd shaki bay dadkii ka qaadeen marka labadaas tobanaad oo u dhexaysay 80kii ilaa 2000 waxaa naga xoog batay marka xoogagii dib u dhiska bulsho in la qaabeeyo mujtamacan oo loo qaabeeyo mujtamac madani ah mujtamac horumarsan isxukuma dowlad fiican leh horumar leh bulshadiisa qaabaysan waxaa ka xoog batay xoogagii dib u dhigayaa ka xoog batay oo gadaal u jiidaya oo raba inay noo celiyaan xaggeena loo celinaya 60kii maana loo celinaya gobonimo doonkii maana loo celinaya meel ka sii horeysaana loo celiyey marka soo ma wixii ka sii horeeyay 40kii meel ka horeysaana loo celiyey marka taasna waa midda nasiib darra keentay burburka inuu nagu dhaco waxaan rabaa inaan ku qeexo 80kii ilaa 2000 20ka sane u dhaxaysay waxay ahayd 20kii burburka ayay ahayd oo burbureen saacaduu bilowday iyo maalintuu bilowday iyo sanadkuu bilowday iyo muhim ma ah laakiin 20kaas sano waa 20kii burburka waay burburkaas iyo muuqaaladiisa iyo sida uu yahay wax yaraan ka taaban doonaa aada uguma sii dheeraanayo laakiin inaa ogaataan yacni inuu jiray loolan aada u weyn oo ka dhaxeeya dadka doonayo in dib loo laabto oo dib loogu laabto meel ka fog meeshii gobonimo doonka aan ka soo bilownay iyo dadka doonaya maya adduunyada inaan meel kala qabsanno iyo marka dambe inta la quustay sanadkii 2000 markii la gaaray ayaa waxaan bilownay inaan dhahno war meel hore maba gaari karnee iska badaa meel hore iyo adduunyada meeshii joogtee meeshii dhexe ma ku laaban karno meeshii dhexe see loogu laabanayo meeshii dhexe ee aan qabiilka diidanayn ma ku laaban karnaa meeshii dhexe ee bulshadeenna u qaabaysnayd inay ilaaliso qiyamka inay ilaaliso waxyaabaha ay wada leedahay inay ilaaliso xurmada ay isku leedahay inay ilaaliso mustaqbal weyn inay leedahay meeshii ma ku laaban karnaa mise wax kasta waa dayacnay oo waa baabi'inay waxaan rabaa meeshaas marka dadaal aada u tiro badanaa jiray dhaqdhaqaaq bulsho xoogganaa jiray oo ah dhaqdhaqaaqii diiday inuu ka qayb qaato
dowlad burburka inuu ka qayb qaato dhaqaaqay diiday ma aha keliya dowlad duminta keliya ma aha dad badan oo Soomaali ayaa ka gaabsaday oo isku dayay inay ka gaabsadaan inay qayb ka noqdaan burburka meeshaas ka dhacay laakiin waxay awoodi waayeen inay ka guuleystaan oo ay ka adkaadaan laakiin 2000 iyo wixii ka dambeeyay oo markaynu carta aadaynay waxa bilaabatay dhaqdhaqaaqaas inuu soo xoogaa bay bilaabatay marka muxuu ku salaysan yahay wuxuu ku salaysan yahay ma gaaro meeshii 40meeyadii iyo 60meeyadii aan joognay oo wax kasta oo aan qarannimada ahayn la iska tuurayay ma joogo laakiin meeshaas ka sokaysuu joogaa oo ah dowlad la'aan ma noolaan karno waa isu baahannahay bulshanimadeena aan soo celinno habka iyo qaabka bulshada ay u dhisan tahay ama ay u dhismayso aynu dib ugu laabanno siyaasaddii baa laga shaqeeyey waatan hadda 20 sano oo aan rabo 20kaas sano oo dib u dhiska dowladnimada ku saabsan inaan dib isugu fiirino 20 sano maraynaa Soomaha markii laga bilaabo xilligaas oo dhaqdhaqaaqa loo dowladnimada ha loo laabto ahay markii hore 20kii sano ka horreysay ha lagu kala tago meesha Sooma ya reer hebel hala riixo reer hebel ha baxeeno walaa goosatay oo naga tagtay inaan bala raadin marka qaar oon xil la iska saarin inta isku hartay oo meel isla joogtay inay isku maleeyaan inay bulshadii iyo Soomaalidiiba la rabay oo loo soo dagaalamay oo loo soo halgamay oo qaranka lahayd oo dhulka lahayd oo badda lahayd oo hawada lahayd inay intan kaliya tahay inta ayaga isjecel inta isla joog inta isla nool meeshaasaan ku jirnay marka oo saas waa ku mahadsan yihiin dadkii xoog badan geliyay in bulshada ay wax badan ka badbaadiyaan xilligaas gargaaray ku badbaadiyeen waxbarashay ku badbaadiyeen dib u heshiisiinay ku badbaadiyeen ganacsi ay ku badbaadiyeen yacni waxyaabaha waxyaaba badan baa xusuustayda soo gala laakiin caawadii xusuustayda ma aha waxa xusuustayda soo gala 1992 ayaan waxaan tegay magaalo la yiraahdo Dirdhab aan tegay طبعا meelahaas ka imaaday oo waxbarasho ka imaaday xamar aan soo socdaa marka Dirdhab waxaan ku arkay dad badan oo aan garanayo waxaan weydiiyay Dirdhab waxaan ka soo doonteen waxay dhahay Dirdhab waxaan ka soo doonay inaan telefoon ka dirsano ka waran yani waxay ka tageen aniga kuwaan garanayay xaafadanaday ka tageen Beledweyne Dirdhabay tageen laami ma aha wixii ma aha waxa la maraa waa garane maxay u tageen inay telefoon ka dirsadaan ay u tageen marka macnaheedu waxaan ka wadaa ma aha kaliya siyaasiyiinta iyo wixii dadkii u kacay bulshada qaabeynteeda meelo badan looga kacay oo ay kamid tahay dowrkii ganacsatada iyo dadka ganacsiga ay u qaadeen marka waxaan rabaa in yar oo aanan aad u dheerayn inaan ka hadlo sida adduunyadu marar badan ay u aragto ummadi markay burburto maxaa ku dhaca bulsho markay burburto maxaa ku dhaca waa maxay muuqaalada ay yeelato waxaa laga yaabaa qaar badan oo idinka kamid inaad soo garaadsateen dowlad dhiskiyoo bilaabatay howlihii bulshadoo bilowday howlihii ganacsigoo bilowday dad badan oo u kacay in burburkii iyo muuqaalkiisii intay ka gudbaan ay bulshada horey u dhaqaajiyaan yaa laga yaabaa in qaarkiin ay ku garaadsadeen oo ay soo arkeen si kala duwan yani 20kii dambe inay la qabsadeen oo dowladda ugu soo qaadayo aan raadin inay garaadsadeen qaarkood ma wadhalina laga yaabaa 20kaas intay yihiin laakiin 20 kale aan u soo socdaa oo meesha aan caawa darteed isugu nimaadna ay tahay 20kii hore ma 20kii kuwa ku tagay anaa kamid ah oo dambe bulshadu markay burburto waxa ugu horeysa ee ka burburta waa kalsoonida qofku wuxuu waayaa wuxuu ku kalsoon yahay waayaa xataa laftiisa kuma kalsoon ilaahay kuma kalsoon diintiisa kuma kalsoon reerkiisa kuma kalsoon yacni qarannimadiisa kuma kalsoon wax kasta shaki uu ka qabaa wixii la isku ogaan jiray oo awal la isku ogaa inay yihiin waxaan meesha kalsoonida lagu qabo meelihii oo dhan kalsoonida burburaa marka qaab dhismeedkii bulshada ay lahayda burburaa waqtiyada kamid ah qofkii intuu u tagay imaamka masaajidka oo uu su'aal yar weydiiyay markuu uga jawaabo wuxuu u arki jiray su'aashaas inay su'aal sax tahay
markii burburka dhaca maxaa dhacaya imaamka haddii intu su-aal weydiiyo oo ka jawaabo ya wuxuu leeyahay bal qof odaygan waa reer hebele mid kale aan fiirino soo ma ama wuxuu dhahayaa odaygan waa isnaqaanaayo ayaan dhaweyd asagoo waxaas sameynaya arkay oo waxaasay tahay yacni wixii xurmada lahay oo ixtiraamka lahay oo qiimaha lahay aa la waynaya ilaa la gaaro heer waa u imaan doonaa qoyska oo qofku meeshuu xurmada ku leeyahay ah qoysnimada ay burburto dadku marka meeshaas la joogo marka waxay aadayaan oo ugu muhiimsan meesha ay isleeyihiin ammaana ku heli kartaa ay aadaya meeshuu isleeyahay laguma dulmin karo meeshaasuu aadaya nasiib daro mararka qaar qabiilkay noqona lakin xataa qabiilka markaa kor ka fiirisid qabiilkii ma qaabaysna waa la isku dulmiyaa isaga dhexdiisa hoostiisa waa lagu guda jiraa dadka maamula ma nidaamsana oo ma qaabaysna waxa ugu weyn ee dhacana waa takrifalka waxaa kaloo la waayaa xorriyaddaa la waayaa qofku waa cabsiyaa ku beermi saas haddaa dhahdid saasaa lagaa aamina saas haddaa dhahdid waxaasaa lagu dhahaa saas haddaa dhahdid ilaa marka dambe xataa dadka qoyskoo isla jooga ee waxba isku sheegi karin soo ma gabadha hadday dhamcado ninkeeda inay wax u sheegto amaa tuhun ka dhashaa waxaan bal iska tartiiba mar kale isu sheegi doonaa hadda ha sheegi soo ma waxaa dhacda markii burburku uu dhaco magaalooyinka iyo meelaha waaweyn ee laisugu imaan karaya dadku isugu soo xoomaan meeshii yar ee aad ka muuqan karta ama keliya lagugu heli karo waa ka soo guure waxaa isleedaha adiga meeshan waa la isku arkaa tuuladan yar magaalada weyn haddaa iska dhex geshid oo dadka ku dhex milantid waa noolaane marka noloshaas aadaa la dhahaa maalmo dhaweed waxaan arkaya anagoo u dabaaldegayna dhammaanteen muqdisho waa magaalada ugu kororka badan ma ahayd ya maxay ahayd magaalada labaad ee adduunka maxay ahayd ugu fiditaanka badan sooma farxin kulligiin ya oo dadka xaggee ka yimaadeen ma dhulkaan ugu ciriirsamay maxaa loo soo aaday meeshaan oo laisugu yimid ma sarfiskaa ka fiican ma noloshaa ka fiican ma aqoontii horumarkaa ka fiican maxaa ka fiican dadku markay magaalada soo aadaan oy deegaanadoodii ka soo tagaan maxaa ku dhaca dhaqan guuraa ku dhaca waxaa ku dhaca habkii nololeed ay ku noolaan jireen ma ku noolaan karaan hadduu beer yar iska falan jiray badar iska cuni jiray beerta waxa oga soo baxa ku noolaan jiray magaaluu soo gelaya nolol magaalo oo aan la garanaynin oo ayaa soo baxaysaba dadka oo anaga tuuladan kusoo barbaaray marka tuulada qof guri ijaar ku jiri maba jirin soo ma magaalada marka lasoo gala ka waran maxay ka bilaabane ijaarka guriga ka bilaabanaya soo ma waa crisis weyn qofka wuxuu soo beertay xoolihiisa uu soo dhaqday wuxuu shaqaystu ku noolaan jiray ma heli karaa magaalada markuu soo galo wuxuu ku shaqaysto kuwa yar aa laga yaabaa intay soo galaan qaraabay isgarab qabad iyo fursado yar iyo waxaas inay helaan laakiin inta badan waxay ku noolaanayaan nolol aada u hooseysay ku noolaanayaan nolol qaxaray ku noolaanayaan waxaana muuqaalkeeda ugu weyn oo ugu foolxun ah muuqaalka barakacayaasha abaaraa dhacay qax baa dhacay bixi baa dhacay barakacayaashaas waxay gaareen yacni sanadkii hore waxaan la kulmay nin dakhtara oo aada khabiir waa oo soomaaliyeed oo doctor khaliif bile ayaan oo WHO u shaqeeyaan kula kulmay meel garoona markaa dee wuu iga yar weynaa laakiin anigu waa gartay markaa buu ii sheekayo wuxuu yidhi sanadkii 2016 2017 abaartii dhacaysay ee aan aada ugu faraxsanay inaad ka shaqayseen badankiin in loo gargaaro dadkeena 900,000 oo qof ayaa barakacday yacni noloshii ay haysteen ay deganaayeen ay ka guureen nolol kale ay u guureen ayagoonan wadanin qaabkii ay noloshaas cusub ugu noolaan lahaayeen iyagoonan lahayn ayay yimaadeen waxaa ku dhaca bulshooyinku markay burburaan inta maskaxda leh cilmiga leh awoodda leh waa haajiraan waa iska tagaan soo ma waa baxayaan waddamo kale ay tagaayaan waa hadda kuwaan u bixinay qurbo joogta soo ma
oo noo soo laabtay dabcan 20 fiicana hadda soo gaarayna sababta waa noo soo laabanayaan hadda ma sii qaxayaan inkastoo la ii sheegay inay jiraan weli kuwa oo sii qaxa oo weliba sii tahriibo badaha gala inay jiraan way baxaan way qaxaan waxaa wehelisa oo kale in kale oo caqli badan oo bulshada dowr ku lahaan lahayd maadaama bulshadii qaabkeedii u halaayo burbur uu ku dhacay waa iska gaabsadaan marka dheed waxaan ma wax laga qabta waqti war waxa waxba lagama qaban karo saas waxaa laga yaabaa hadda inkastoo xaaladdu fiicnaatay barkiin markii oo inta soo aadayseen in su-aalo badan reerahoodii iyo saaxiibadoodii iyo weydiiyaan kaal adiga meesha maxaa ka doonaysaa wax ka dhacaya maa ka ogtahay horta meesha soo ma maxaa u malaynaya xilligii hore ee lasoo dhaafay ee burburka uu xooga badnaay dadku siday yihiin maxaa iga galaydaa marka badanayso oo muuqaalka kale ee uu yeelanaa dabcan shaqo la-aanta xirfad la-aanta wax soo saar la-aanta dhoofka waxaasoo dhan waa qaybo weyn oo ka mid a waxaa lunta tayada nolosha o dhana hoos u dhacda marka yacni qofka wuxuu u noolyahay u garan waynaa waa la wuxuu u dhintuu garan waynaa hadduu nool yahay xataa si uu u horumaru garan waynaa waxyaabaha tayada nolosha caadiga u ena waa qiimo beelaya waxbarashadaa ka mid a caafimaadkaa ka mid a fayadhowrkaa ka mid a waxaa ka mid a waxaa arkaysaa marka dambe dadka xataa gurigiisa oo hagaajisan kara aan hagaajisanaynin qashinku iska qaadi kara aanan iska qaadaynin yacni burburkay ka mid tahay tan iigu daran oo in la ag istaagana u baahan waxaa waaye waxaa luma halbeega qiyamkaa luma waxa la isku qiimeeyo aa lumayo waa maxay hogaamiye ma ninka dadka inta iskugu yeera dagaal geliya waa maxay aqoon-yahan waa maxay xilkas waa maxay sheekh waa maxay oday dhaqameed waa maxay ugaas waa maxay waxgarad waxaa lumaayo waxa halbeegaa lumaayo ilaa laga gaaro xataa halbeega nabadda halbeegyada caadiga ah inay lumaan waxaa lumaya halbeega qarannimada waxaa lumaya halbeega wadaninimada waxaa lumaya halbeega camiilnimada waxaa lumaya waxoo dhan mujtamac wuxuu noqonayaa mujtamac aan halbeeg iyo wuxuu wax ku qiyaaso iyo wuxuu wax ku qiimeeya aanan lahayn uu noqonayo oo meelaha ugu daran ka mid ah dabcan ku tiirsanaashada dibadda badana iyo ajnabiga wuxuu aaminaa qofka inaan waxba qaban karin bulshada inaanay waxba qabsan karin laakiin cid kale oo ka maqan inay tahay cidda wax u qabanayso waxaa meeshaas qodobadaas aad taxayso waxaa ka jawaabaysaa su-aashii ahayd markay guusha burburto maxaa ku dhaca waa saas aada iyo aad wada waxaan u fahmay maxamed ha ku dheeraan inuu ilahay way ogyihiin dadkan bulsho burburtay waxa ku dhacay way ogyihiin inuu ilahay aan u fahmay waxaa badan ku tiirsanaanshaha ajnabigaa badan raadiay dhegeysanayaan 24 saac waxay sugayaan maxaa meel kale laga soo sheegay waxay aaminayaan inay iyagu xal u haynin mashaakilkooda waxay aaminayaan mashaakilkooda meel kale in laga xalinaayo qoladaas nebiga qoladii la jirta inay waxooda hagaagayso meeshaasaa loo kala tartamayaa wixii la lahay oo qofka uu lahay ama bulshadu ay lahayd ama ay wada lahaayeen aa la ilooba oo laga tagaa oo noqonaya waxaan qiimo dadka agtiisa aanan ka lahayn ibnu khalduun ninka la yihahdo ayaa kitaab qoray la yihahdo almuqadima oo taarikh ibnu khalduun marka waxyaaba badan wuxuu sheegaya aada u xiiso badan bulshadu markay burburto wuxuu leeyahy waxaa mararka qaar aada loo qiimeynayaa dad garaadkooda hoose kuwa afka adag kuwa afka xun kuwa heesaha kama hadlaayo kuwii aan isku ogeynaa kuwa inay dadka ammaanaan jecel kuwa inay dadka caayaan jecel kuwaasaa waxay noqonayaan kuwa magacooda la sheegayo oo la garanayo oo la sameeyo waxyaaba badan markaan fiiriy waxaan dhahay ninka odayga malaha anagu naga warhayay sida aanah waxyaabaha oo bulshadu markay burburta ku dhaca waxaa ka mid a in qof kasta oo mas-uul ah wuxuu ka cabsanaa uu iska ilaalinaa dadka uu mas-uulka ka yahay wuxuu ka shaqaynaa inaysan isu imaanin wuxuu ka shaqaynaa inaysan tashan wuxuu ka shaqaynaa inaysan wada hadal
siduu u kala dili lahayna waa ka shaqaynaya yacni mar raba meelaha dheerdheer aadaysiina aadina yani iskuullada macallimiinta waxay necab yihiin ardada inay urur samaystaan markuu burburka jiro maxaa dhacaya haddii ardada urur samaystaan ya xuquuqay yeelanayaan xisaabtan ay yeelanayaan waxay yeelanayaan waa dhibay ku noqonayaan maamulahana muxuu necab yahay macallimiinta inay urur samaystaan oo necab ilaa soo gaar madaxweynuhu baarlamaanku nacaya soo ma wasiirku wuxuu nacayaa shaqaalihiisuu nacayaa maamul goboleedka saasuu nacayaa saas yacni burburka dhacayo qayb waxaa ka ah in kalsooni darrada jirta darteed qof kasta oo in yaroo mas-uula xataa beesha dhexdeeda markii lasoo gaaro dadku inay isu wada yimaadaan oo yaa maqan la yidhaahda iyo waxaas lagama shaqaynaye inta la goobeeyo oo la yidhaahdo taladu meeshaas iyo saasaan u rabnaaye hebel naga dhaafay waxba loo sheegin gadaala ooga sheegi doonaaye saa la yidhaahda ayaa ka mid ah qaybo waaweyn oo mujtamacena waa laga tegayaa oo ay ugu badan yihiin dumarka iyo dhalinyarada ay ugu badan yihiin kuwaas gadaala wax looga sheegi doonaa la dhahay naga dhaafo markaan anagu soo tashano oo aan wax soo gaarnay ayaa laga sheegi doonaa yacni waa qayb burburka ka mid ah burburka waxaa ka mid ah saan haddaa idiin sheegaya sawirka iyo xaqiiqada ayaa kala fogaanaya dadka qaar markay sawirka arkaan waxay u malaynayaan sawirkan inuu yahay wixii xaqiiqada ahaa inuu yahay u malaynaya sheekaa jirta oo Greek hore markii ay boqoradu dadkooda waxay ku tababari jireen dagaal qofkan waxaa lagu markuu boqortooyada leeyahay dhaxalkeeda abaanduul noqon jiray marka dagaal la gali jiray oo dadka loo tababari jiray boqorku marka dadkiisa dagaal u tababari jiray boqoraa marka intuu dagaal galay ay dadkii ka dhamaadeen markaasuu wuxuu dhahay waxaan rabaa in abaanduulo la ii keenaan rabaa marka asagu dadkii ma kala yaqaano dadkiisiina ma aha abaanduuluu doonaya marka waxaa loo keenay sawiro dad abaanduulayaala loo keenay abaanduulayaashii sawirada loo keenay haddee qof xoog badan qof dherer badan qof murqo badan qof yani saas sida un abaanduulaha lagu doorto soo ma waxaa loo keenay sawir nin wax shiishaayo oo qoray haysto wax shiishaayo ninka wax shiishaayo suu egyahay waa taqaaniin dabcan ii sheega de qofka wax shiishaayo horta ilo isku hayaa soo ma lugihiisana see waaye ya waa isdhaafsan yihiin lugihiisa soo ma marka xariif ila oo lugla wuxuu isu diyaarinaa inuu abaanduulay noqdo soo ma inuu abaanduulay noqdo isu diyaarinaa sawirkaan uu dhiibay markii la arko qofku wax shiishaayo dagaalna loo socdo maxaa loo malaynaa haddee qofkii munaasibkaa inuu yahaa loo malaynaa soo ma marka mujtamacu hadduusan kala saari karin sawirka iyo xaqiiqada mararka qaar sawirkuu ku dhagaa wuxuu u malaynaa inuu wax yahay laakiin markuu xaqiiqada arko wuxuu ogaanaa inuu yahay kankii aanan waxba aan loo dhiiban karin meel mustawa kasta ka soo bilow oo ka waxaysan waa qayb ka mid a muuqaalka ay leeyihiin burburka bulshada meesha ugu dambeysaan rabaa marka hadda inaan imaado waxaa waaye marka waa qaybta dib u soo kabashada bulshada waxaas aan idiin sheegayo oo dhan ani waxaan aaminsanahay meelahan ooga bixi lahayn inaan soo marayn waxaa inoo bilaabanayso marxalad la yidhaha marxaladda dib u kabashada marxaladaas dib u kabashada ah aniga waxaan ku qiyaasaa inay tahay 20 sano ee soo socoto ustaad Umar aan marka ka xigay su'aalkan rawaxsan ayna inta mawduucaas gelina tii kale aslee oo ku jirta inta ka doodaha gilaa waa sheegtay calaamadaha waxyaabaha la arko markii bulshada burburto inay markii bulshada samaysan tahay kawaas dad badan naga mid ah ama badankeeda boqolkiiba 90 iyo waxa laga yaabaa markii aan burburay ma joogin waa marka calaamadaha ugu qortay inay burburayso markii samaysan tahay hadda u bad qabaan hal iyo laba ka taabay kaas dib kabashada fiiri yani ma rabo inaan taariikhda ku laabto laakiin calaamadaha ugu weyn waxay ahayd markii inta kalsoonidii luntay dadku waxay u laabanayaan meeshii horey loo socon lahay gadaalay u laabanayaan
xataa markay sheekaynayaan meesha adduunyadu ka sheekaysa 20 sano ee soo socota maxaan samaynaynaa dadka burburay maxay ka sheekeeyaan sidee ahaan jirnay sooma ya ayaan dhaweyd maraan campaign ku jiray wiil saaxiibka wuxuu soo geliyay 20 sano ka hor wixii aan sameeyay dadka dhan inaan nin fiican ahay aamin waxay maxaa noogu sheegi weysay 20 sano ka hor inaan fiicnay waa u sheegay taas muhiim ma ahaan dhahay 20 sano ee soo socota maxaan tari karaa yaa muhiim marka waxaan marka aaminsanahay 20 sano ee soo socoto inay tahay 20 sano ee ugu muhiimsan ummadda Soomaaliyeed goormay ka bilaabane haddeer Soma okay dadka ugu muhiimsan 20 sano ee soo socota ee actoriska ah ee ficil kale ee muuqaal kale ee dadka Soomaaliyeed qaabaynayo 20 sano ee soo socota yaa way haygu soo fartayaan igu soo fiiq marka ujeedada kulankeena wuxuu ahaa inaynu u diyaar garowno sidaynu bulshadeena u qaabaynaa 20 sano ee soo socota sidaynu u qaabaynaa su'aal aan adiga ka jawaabi kara maaha laakiin waxaan siinayaa dhowr waxoo aad iyo aad ugu muhiimsan kow waa inaynu samaynaa aragti maxaan doonaynaa oo aynu ka midaysannahay oo aynu ku heshiinaynaa bulshada Soomaaliyeed aan ka hadlayaa reer hebel iyo xaafad heblaaye iyo koox heblaaye iyo dugsi heblaaye iyo ma ah iyo gobol heblaaye maxaynu doonaynaa oo aynu ka midaysannahay oo aynu rabnaa inaynu noqono waana su-aasha ugu adag taa haddaynu helno dadka waa inaynu ka ilaalinaa wixii burburka keenay inaan ka digtoonaano marka burburka maxaa keenay kalsooni daraa keentay dan kalsoonidii inaan dhisnabo si aan waxyaabaha ugu guulaysano waa inaynu qeexnaa aragtidaas oo dadka dhan ay ka wada caddaato oo isku meel ay uga soo wada jeestaan waxaanu u baahannahay wixii lasoo dhaafayna inaan isku meel uga soo wada jeesano haddaan aaminsanahay wixii lasoo dhaafay inay reer hebelna sax ahaayeen reer hebelna khaldanaayeen reer hebelna reer hebel ka adkaadeen reer hebelna reer hebel waxaas u soo adeegsadeen fikirkii khaldanaaya dadkan lagu soo hogaamiyeyna uu yahay fikir sax ahay hebelna uu ahay halyeegoodii hebelna uu ahay dembiilahoodii hebelna uu ahay saas bulshada ma sahlana inaan qaabayno mar kale sababtoo ah markaan qaabayn maagno waxaasoo dhan aan ugu soo baxay waa isku dagaalamaynaa marka hebel geesi u ahay hebel dhigacab u ahay hebel dadkuu kala dili jiray hebel dadkuu isu geen jiray hebel dadkuu xoreynayay hebel dadkuu gumaysi gelinayay hebel saas oo kale yacni masalan lubnaan markii dagaalka sokeeye laga baxay 16 sano dagaalka sokeeye socday waddan aad u yar waaya yacni aad u yar waxa lagu heshiiyey dagaalkii sokeeye cid wax loo qabsan kara lama arko ma wajirtaba annagu marka inaan aragti ka yeelano wixiina soo dhaafaan u baahan waxaa lagu heshiiyey taariikhda la qorayay inaanan lagu darin dagaalkii sokeeye meel aan looga soo darin waxaan u baahannahay inaan talo ka yeelano waxaan u baahannahay wixii dagaalka keenay wixii burburka keenay burburka bulshada o dhan wixii keenay in dad ilaaliyo loo helo oo yidhaahdo war annagaa soo joognay saanay ahayd waa lagu burburay saan haddii lagu socdana waa lagu burbura halkaa aan ka qabanna marka waa in wax la wada lahaado keligaa wax la-aanaa ma dhici karto waa in wax la wada qaybsado keligaa waxaysanaa ma dhici karto anagaa reer hebelaan wax ku noqonaa ma dhici karto maxaan ku idhaha reer hebel col abadi e waayo sideedaba anaga iskugu maanayna ma dhici karto dalkeenna waa kee xuduuddeenna waa tee khayraadkeenna waa kee waxaasoo dhan maxaa la isku dagaalamay maxaa kiciyey inaan burburno maxaa keenay qof in masaajid lagu dilo maxaa keenay qof gurigiisa in laga barakiciyo maxaa keenay waxaas wixii keenay inaanay mar dambe aanay dhicin waan ku faraxsanahay dadkii jaamacadda ummadda furaan ka mid ahay markii aan dowladda ku jiray
laakiin su-aasha waxaa waaye jaamacadda ummadda maxaa burburiyey soo ma wixii jaamacadda ummadda burburiyey hadda inaan iska ilaalino waayo marka oo ay ugu badan tahay cadaalad darrada kala tabashada aan la xalinaynin iyo wax wada lahaanshaha oo aan dadka isku qancinaynin iyo hab mujtamaca markuu khilaafaad iyo mashaakil uu soo dhex maro uu ku xallisto inuu leeyahay waa arrinta kaleeta waxaan rabaa inaan aada ugu dheeraanin su-aalo badan adinka idinka weydiiyo habka dhismaha bulshada hoggaan bulsho inaynu samayno hoggaan bulsho oo oo mustawayaad kala duwan leh si hoggaanka noo soo baxayo oo heerka ugu sarreysa fiican imaanayo ama beel ha noqdo haddiiba beesha aan isku waafaqno in loo baahan yahay inay sii jirto ama deegaan ha noqdo ama dhaqaale ha noqdo ama siyaasad ha noqdo uu noqdo hoggaan ka soo baxay bulshada oo ku dhisan xaqiiqo ku dhisan sawirkii ma aha soo ma suu ku noqonaya meel kasta oo bulshada qeyb kasta oo ay leedahay waa inay institution yeelataba meeshaas ay noqoto meesha tartanka uu ka soo bilaabanayo isqadarinta ay ka soo bilaabanay hoggaanka uu ka soo baxayo dulqaadka uu ka imaanayo kartida lagu ogaanayo capacity iyo awoodda lagu dhisaayo meeshaas inay ka soo bilaabato shalay qofaa ii soo qoray wuxuu dhahay dib u dhiska bulshada aa ka hadlaysad waxaan rabaa ustaadu inaad ka bilaawad in 3 jirka laga soo bilaabo dhahay kuwaan iska dhaaf uu dhahay hadda meesha taagan soo ma maya meel fiican aan joognaa laakiin waa inaan aan bulshada qaabeynteeda aan u jeesanaa waa inaan ku laabannaa meeshii aan ka nimid deegaanadii in lagu laabto waay beeraleydii lagu laabto xoolaleydii lagu laabto ceelkii lagu laabto deegaankii lagu laabto tuuladii lagu laabto masjidkii lagu laabto dugsi qur-aankii lagu laabto xaafaddii lagu laabto odaygii xaafadda iyo wixii meeshii lagu laabto caddadii iyo caweyskii lagu laabto bulshada meeshaas in laga soo qaabeeyay u baahan tahay laakiin inta magaalada joogto shahaadaan soo qaatay haye digrigii labaad kii saddexaad soo ma intaa maraa beledkan ku noolaana doolaraan qaadana hay-adaan u shaqayna inta saanaan yeela yacni ma ku qaabeyn karno bulshadeena kuwa inaan ku laabano nolosha dhabta ee xaqiiqada ee bulshada ay leedahay inaynu taabano jaamacadda markaa ka baxdid wax ku weyn oo kugu soo dhacaa maxaa shaqo xageerta inaad ka shaqaysid ya dalka meeshaa rabti inaad ka shaqaysid ii sheeg qoryooley ma aade ya xagee aade xagee tege so marka annaga marka bulshada ka soo baxno oon ka soo tagno bulshada dabaqadaa ka samaysmaya marka waxyaabaha burburka keenee ka mid dad waxaa ka samaysmaya dabaqad sare ku nool iyo dad dhulka ku baaba'san mararka qaar hadda waxaan ka walwalaa magaaladii nafteedii baaba dabaqad ka samaysan tahay makhaayadda oo makal mukarama iyo jidkan iyo meelahan iyo ku taallo iyo makhaayad jidka soddonka ku taalla isku waxmaa wax looga cunaa isku qiimo miya he halkii qof kostigiisa halkaan iyo halka meeqa qof xaggaas wax u gooyaa ya den bulshadeenna see rabnaa inay ku dhisanto marka waa inaan baxnaa xagga tagnaa cuntada u doorannaa dadka la noolaanaa qolyaha oo saaxiibada inta makhaayadaha kulayaysan iga xanaaqina soo ma garan ilaa aan gaarno dadkeenna iyo bulshadeena aan gaarno aan qaabayno aan samayno kuwaas aynu qaabeyntooda dib ugu laabano meesha aan aniga raba caawa inaan xooga badan saarana waxaa waaye war kor keliya ha soo aadin adiga soo ma garan bulshada kugu xeeran ee aada qaabeyn kartid qaabeynteeda inaad ka shaqaysid oo aad ku qaabaysid qiyam la garanayo xaqiiqo inaad ku qaabaysid qiyamkaas lagu heshiiyey oo ay ku qaabaysnaadaan waxaa ka soo bixi doonto bulsho fiican waa soo gudbaysaa waa soo koraysaa markay soo korto meesha ugu sarreysay imaane dadkuna waa isgaranayaan waana isbaranayaan qofka wax loo dhiibanayo qofka wax lagu aaminayo qofkan lagu aaminina waa isbaranayaan sideedana haddaa maqashiin dib u dhiska siyaasadeed iyo hoggaanka siyaasadeed
waxa uu ka soo baxaa qaabka bulsho ee ay ummaddu leedahu ka soo baxaa iyo fikirkeeda haddii qaabkaas bulsho iyo fikirkeeda uusan habaysnayn marnaba suuragal ma aha inay bulshada u soo baxdo qaab hoggaan wanaagsan oo siyaasadeed inuu u soo baxdo dabcan aniga siyaasiyiintan ka mid ahay la socdaa waxaan rabaa arrimo oo dib ugu noqoshada bulshadaas marka gaar looga soo tago dadka tababarkooda waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ilaalinta xorriyadda iyo dhismaha shakhsiyadda qofka heer guri ha ahaado dadka inaan la caburinin ra'yigooda inay cabiraan inay sheekaystaan inay wada hadlaan inay iskhilaafaan aan barano khilaafaadka sida loo xaliyo in sida loo wada noolaado aan barano heer kasta oo ay joogtaba maalmahan waxaa socota sheeko oo guurka ku saabsan soo maha ya kuma jira aniga sheekadaas la socdaa laakiin waxaan rabaa inaan sheego waxaa naga lumay xorriyaddii intaan ku wada hadalno aan mushkiladaheenna aynu ku xalin lahayn oo meesha burburka qoyska uu ka dhashaa oo wax yaroo khilaafa markuu dhacdo xaggee ku dhammaanay kala tagay ku dhammaanay haddii qoysku saas yahay maxaa siyaasiyiinta ugu diidaysaan hadday iskhilaafaan inay kala tagaan soo ma arrinta marka ku saabsan barbaarintaas oo heer kasta ay leedahay oo aan lagu kala tegayn aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ifiya iyo asxaabta saaxiibada ee anagoo xataa marka qaar wax badan isku diidan in ay golo noo sameeyaan oo aynu isugu nimaado oo aynu ku wada hadlo si xorriyadda loo cabiro ma raba inaan kusii dheeraado adduunyada waxaa aada oga jirto in dowrka bulshada mar kastaba uu xoogoobo bulshada markaan qaabaynayna waa inaan u qaabaynaa inay xoogowdo inaan u qaabayno waayo oo aan mar damba lagu takrifali karin in intuu u yimaado oo reer hebel aan ahay uu dhaho oo danaysanaayo ama koox yar ama saasoo kale waxay haystaan inaysan ka baabi'in karin inaan bulshada u diyaarino waayo oo qofkaas uu ogaada kuwaan looma geli karo sidii hore ma aha wixii inta loo sheegaayo oo wax kasta iska samaynayaan baabi'inayeen hadda ma joogaan adiga la iska tegi doontid qofka dhibka wado meeshaas inaan bulshada soo gaarsiino ayaan u baahanahay institutionska loo dhisayo bulshada institutionska bulshada loo dhisayo waa inaan ka shaqaynaa inay institutions waari kara ay noqdaan waxa inta maalin la sameeyo mashruuc ah meel wax looga soo qaadanayo markii waxaas laga soo qaatana kuwii ay isku khilaafayaan ama wixii burburayaan meeshii looga tegaayo waxaas inaynu ka waantowno aynu ka gudubno waayo aada waxaan ugu faraxsanahay institutions badan oo bulshadu ay lahayd oo 20kii sano ee burburka ka dambeeyey iyo soo dhismayey inay wali xoogan yihiin oo ay soo dhismayaan ayaa dhawd waxaan ka qayb galay kulan ay lahaayeen FBEMS waa dalad kamid a dalada marka dadkii wax ka aasaasay baan kamid ahay waagaas dhalinyaro ahaa sidiinoo kaleeta 20 sano kadib institutionkii waa jira sidii waa ka xoog badan yahay markaa anaga jooga dadka mas-uuliyiinta kamid ahay waxaa laga fikirayay bishii miisaaniyaddiisa inay tahay $600 waana adkeydba in la helo aaday u adkeyd sanadkii 7,000 meequu noqona $7,200 dhib qaarkood intaa laga keeno qaaraanka waa la bixin laayay inta waa la bixin laayay saasay ahayd maalinleed markaan ka qayb galay hadday markii xisaabaadkii waxay ii sheegeen waxaan ka baqaa haddii aa ogaataan in lagu duulo oo liraa nimankii wax weyna haystaana laga soo qaado waxa muhimka waxaa waaye waa la wada leeyahay bulshadu waxay wada leedahay oo waari kara inaan samayno waa fiiri waxaan rabaa inaan hadalkayga kusoo gabagabay adinkaa idin siinaa inta dambe lacalla haddaad su-aal i weydiisaan inaan wax ka jawaabi karo waxaa rabaa inaan idiin sheego 20ka sane soo socoto marxalad aad u weynaan goyn karnaa bulshooyinka adduunyada maanta jiro waxaa la sameeya waxa la yidhaha af carabi waxa lagu dhaha xarqul maraaxil baa lagu dhahaa bypass
ما خصب معه وحي لو صوّد مري دن أدونك وصامر أنت كم إنا مرنا خصب معه أنت كلا قبصنا هنا لكن وأنا كإلالنا وحق ذا نوعلنا وأنا كإلالنا runtan isku sheegna oo aan dhahnaa gadaal mar rabna inaan u noqono waxaan rabaa inta dambeena adinka iigan raala hada hadii hadalka u dheeray aad iyo aad u mahadsantiin